والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan halkan maanta ku wareejinayaa hadii la hay'admo $3,780 oo ay soo tabaruceen gabdhaha jaaliyada gobolada Awdal iyo Siraal u dhashay ee degan magaalada Jeddah dalka Saudi Arabia. tabarucaas ay ugu tala galeen ay kaga qayb qaataan dhakhtarka loo dhisayo dadka dhimirka wax uga dhimayeen ama maskaxda uga dhimayeen ilaahay caafiyo. marka deeqdii ay gabdhahaas soo direen waxaan guddoonsiinayaa gudoomiyaha agaasimaha isbitaalka guud ee Boorama Dr. Ismaaciil Maxamed Aaye. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. halkan waxaan ka gudoomay Professor Xasan Cali Cismaan $3,708 lacag oo dollarka Mareykanka oo loogu deeqay haweenka jooga magaalada Jeddah ee mataqaana u dhashay gobolkan ay u soo deeqeen in lagu daro dhismaha isbitaalka dhimirka ama waalida cid bas oo taqaano oo hadda aan bilownay dhismihiisii oo ka socdo qayb ka mid ah isbitaalka Boorama. insha Allah wax weyn bay ka tari doontaa wax kasto $100 haatay wixii lagu darado wax buu noqon doonaa. wareejinta Xasan kala wareegnay lacagtii ay gabdhaha Sacuudiga joogay nagu soo deeqeen ee ku soo dartay mental halkan waa meesha aan dhagax dhigaynay maalintii dhaweey TV-yadii iyo website-yada laga arkay marka waa area-da aan ugu talagalay dhismihii inaan ka bilowno insha Allahna haddaan ugu dambayno berri ma aysan dambe dhismihii ayaan caadi u bilaabi doonaa halka bilaabi doonaa marka dhismihii oo soo bilowno socda iyo wixii sidaan horeba u sheegnay wixii activity aan hawsha ka qabanay oo dhameystiran ayaan insha Allah media gelin doonaa si cid kasta oo wax ku tabarucday iyo cid kasta oo ku tabaruci doontaaba ha uga dhigto marka halka area-dan waxaan sheegaynaa area-da isbitaalka Boorama ka tirsan ee aan u saacayn garaynay in dhismahaas ka dhamayso waa area ku filan waxaan ka dhisi doonaa insha Allah isbitaal ah ilaa 30 qof qaadaya chiefkood qaadaya iyo mataqaana xafiisyadoodii iyo outpatient-koogii bukaan socodkoogii wixii oo dhan waxyaabaha kale wuxuu la waraagi doonaa insha Allah isbitaalka istoodhada iyo kitchenka iyo waxyaabaha electriga iyo biyaha iyo waxa isbitaalka la waraagi doonaa insha Allah si ay taasi saasaan insha Allah ku wadnaa marka isagoo socdana si ugu dhaqso badan iyada qoodii iyo meedina ugu soo gudbinaa insha Allah. Wassalaamu alaykum.